عدينك كتري جيدا صومالي كميسي عدينك كتري جيدا صومالي لحدنكي مركو قوية كبش الله الله علنك قود كي نصرن قولا نقود داقي قرقار نقود مسينين قعما وذا جراكين haddaad gaarto lidin golobta waa lagu ilaabaahay inay qolaba geed waabatee gooni ku caweydo qasabkeedu waa guul daraan laga gaboobayne midnima wanaag lagu guntaa laguna goobaahay inaad guda aloodaani lees garabsadaa dhaanta عيد وارجع اللبان ونير كويلا أو فرعون ذلك يرورك في حين في اسمه مركا صديق بيشة يعني وحضروا لنا أبوي كور يعني دايما نرجع بسم الله الرحمن الرحيم مركورة وحن كما تدري sida kalgacaltooyada ay aad kasoo qayb gasheen baaqiga aan u jeedinayay soomaalida ay ahaa inaad galabta nagala qayb gashaan munaasabadan labada maalmood soconaysa ee ka dhacay Beckham Library ay sida wadajirka ah usoo qabanqaabiyeen ururada Somali Southwark Forum iyo Startup Publishers mahadiya maamulada kadib waxay la tahay runtii hawl waxaa jiri jirtay mahmaan oranaysa ninkii gurbaan sumaya waxtaas oo kale ilaa u dambeeyey marka ninkii buuqala isagaa laga rabaa inuu sifaha uu qoray ujeedada iyo macluumaadka buuggaasi uu xambaarsan yahay inuu kaga warramo mujtamaca uu hor yimaado marka su-aal ay soo baxaan buuggan waxaan ugu magacdaray horseedayaashii halaaga Soomaaliya buuggan wuxuu ka tarjumayaa dhammaan ama soo bandhigaya wixii ka dhacay dalka jamhuuriyadda Soomaaliya muddadii 30 sannadood ahayd laga soo bilaabo 1978 ilaa maanta wax ka soconaya Soomaaliya buuggan kalakiisa ama bayska dambe waxaa ku qoran in yar aan iftiimiyo qofka si markiiba uu bedelgo waxa buugga uu xambaarsan yahay abwaan ka mid ah abwaanada Soomaalida oo bixinaya sifaha iyo dhaqanka Soomaalida maanta ay Soomaalida maanta wuxuu ku tilmaamay xariisii danaalaha iyo waxqabad xalfiyada saddex sagaashan kiilo yiri marka ku diigle marka ku diigle yiri ku diigle mar ku diigle yiri ku diigle marka ku diigle mar ku diigle marka ku diigle iyo mar ku diigle sidoo kale wuxuu yiri abwaan Ahmed Naji Saad allow qaran keenina dunino opportunity qurbana bisho qarabo inuu marka dhacay fayrkeena waa qoorsaday waxna waan kala furanay waxna qabay sidoo kale waxaa jirta hees runtii aad u taabatay oo ah heestii ugu dambeeyay ee uu sameeyey Allahu naxariistay isagana Abdullahi Qarshe oo landa ku geeriyooday guumownay gees kastaba kacay fawlay gubnay oo qumaadnay oo garaacnay gawracnay go'nay geed aynu ku harsanay garoorkii wada goynay garoorkii wada gawracnay go'nay geed aynu ku harsanay garoorkii wada goynay garashana kacay fawlay wuxuu yiri gabanadii gurboodkii kacay wada gurdoomine garashadoodii iyo dhaqankoodii badbuurinay gabandhano gullo ayuu loo gargaar buuggan wuxuu soo bandhigayaa xaqiiqda wixii ka dhacay dalka ma ammaanayo qoys gaar ah hogaamiyaashii idinka iga soo horjeeda galabta abyalateed ee qadaa'ilka ahaa ee ilaa maanta qaybiyey waxaad doontaan kala taageersanaada ama Somaliland ahaada ama Puntland ahaada ama dagaalada koonfurta ka soconaya kooxaha mas-uulka ah taageeradiiya intooda ayuu buuggan soo bandhigayaa wixii ka dhacay dalka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kuwii duulaanka ku ahaa qarannimada iyo madaxbannaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliya buuggan muddadaas 30 sannadood ayuu soo bandhigayaa dhammaan dastuuradii ururadii mas-uulka ka ahaa ururka ilaa maanta soconaya maanta mujtamaca Soomaalidu waa ka gudbeen heer iyo dastuur la dhigtaa waxay marayaan magaca Ilaahay lagu gowraco nin ashhadanayo laa ilaaha illa Allah la ogtahay inuu islaam yahay in la gowracan marayna wuxuu buugga ka digayaa
wuxuu uga digaya mujtamaca soomaalida in mar kale lagu dhiirado wixii muxuu ahaa aan shal soo maray ama maanta aynu marayno marka waxaan jeclaan lahaa dadka risaalaha aynu qabo in laga weydiiyo gudihiisa waxaa ku qoran qofkii akriya isagaa dareemi doona waxaa buug wuxuu soo bandhigaya oo keliya ma aha buug waxa uu soo bandhigaya ma aha keliya muxuu ahaa waxa aan ka warramay wuxuu soo bandhigayaa dhammaan hogaamiye qasiidada aan idiin sheegayo reeraha naloo tirinaya kasoo jeeda ee mas-uulka ka ah ururka weli ka soconaya soomaaliya buugu wuxuu soo bandhigayaa sidoo kale muxuu ahaa sunta lagu aasay soomaaliya iyo waxyeelada dadka soomaalida ay u geysatay wuxuu buugu soo bandhigayaa wiilasha yaryar ee 14 jir ugu yaryahay 16 jirna ugu weyn yahay ee magaca ilaahay iyagoo aaminsan jannada ugu gelayaan adinkii hadda salaada soo wada tukaday waxay jiri jirtay shafciidna waa nala fadhiya maanta waxay jiri jirtay man dakala fi bayt abu sufyaan fahuwa aamin maanta gurigii ilaahay baa nagu dhextaray gurigii ilaahay baa iskuulayaa maanta ya waxyaabihii igu yaabka badnaa ayaan soo arkay waxay ahayd intii aan qoraalada samaynayay in sheegalo soo xiriiro yiri kuwii galaashiida ku tukanayay oo ugu sugayay inay dilaan wiil ka mid wiilasha uu dhalay oo xirarkiisa xoogga u ahaa baa laga sheegay oo markii ciidamada Itoobiyaanku ay joogeen waa la xiray 4 bilood oo xiriirkeeda aadaya sidiisa ugu wada fariidayay markaasay markii dambe salaadii maqrib bay galaashiisa ku tukadeen baa ilaahay ka dhawaajiyay ninkaas uu istaagay markaasii wiilkayga waa la haystaa waa xiran yahay waxaan idin weydiisanayaa ilaahay dartiina faarxad iyo maqsad wiilkayga markaasaan kulligii ugu soo daayay kuwii dilina ay $50 ugu soo siiyeen gadaashiisa ku tukanaya faarxada uu weydiistay ayaa furatay markii uu badii ka dalbaday inay ilaahay u baryaan wiilkiisa xorriyadiisii u helo ayay banaanka markii uu soo baxay bay dhahay sheekhow baashi aan kugu dili lahayn waa tan lacag baan kugu soo qaadanay inaynu ku dilno muddo 4 bilood ayna halkaas tegaysay oo kooxda dowladda ah iyo maxay ahayd Itoobiyaanku ku shaqaynaysaan leeyahay imise qof oo Soomaali ah ayaa xabaar lagu dilay imise qof oo Soomaali ah ayaa lagu dilay waxaan doonay ma aha inaan ahaano Soomaalida dadka gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya buugu wuxuu soo bandhigayaa oo kale dhammaan aqoon-yahanadii iyo saraakiishii Soomaalida ahayd maalin kasta lagu dilo magaalooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ku jira muqdisho oo keligeed waxaa ku dhintay 6 jenaraal baa ku dhintay kii toddobaad waa kii maantii uu isku qarxay waxaa la dilaa dhaqaatiir waxaa la dilaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka ka tirsan jirtay xaggee loo socdaa oo dalka iyo dadka loo wadaa ma isweydiinayo sidaas darteed waxaa kaloo ku jira wataan lahaa maxay ahayto maxaa naloo haystaa buuggaas casir ka bishanaya siyaasadda iyo dhaqanka dalalka reer galbeedka ah meelaha qaar waxaan sheegnay inaan soo dhigay diyaarad ka mid diyaaradii dagaalka ee Mareykanka askari Mareykanka oo dhashay dhulkan ku jiidnay mid waa qabsanay Soomaali baa tahay reerkii doona ka qabsado waxa tan sameeyay Soomaali baa tahay ilaa la soo diro ilaa la dhaho Soomaaliya waxay ka baaq u tahay dowladda ka mid ah kashada dadkooda adduunka maanta adduunka kooda caya muxuu ahaa أما yes we can وحالا قبل تقلت هنيك اللي قال أوباما yes أسامة بن لادن بعدنا فدليان سوق عالمي وقطع يسمى عنا وبرنامج حلو اسمه الصومالي فإذا كم إذا جوابه وحين مقتلين أيضا هو يمدوها 100 كيس الله صدره وبقي مسلم بيشتو بعد قال الله محل تخطط الصومالي مرك أول السلام يا أبد بما تنتين عندك الإسلام في رمضان يعني وقبة هذه المجال لكن